afayeenka guddiga doorashooyinka qaranka Saciid Cali Muuse oo shirka jaraa'id ee ay komishanka doorashooyinka ku shaacinayeen bilowga ololaha xisaabta ka hadlay waxa uu tibaaxay in howlihii guddi ahaan gundhiga u ahaa qabashada doorashada ay meel wanaagsan u marayaan komishan ahaan waxaanu intaasi ku lahayn qaabka uu u bilaamayo ololuhu iyo nidaamka ay u dejiyeen sabtida waxay noo bilaabanaya haddii alla yiri oo bishu ay tahay 21 bishan October 2017 waxay noo bilaabanaysa waxa weeye waa ololihii doorashada ee xisbiyadu ay kala lahaayeen ololahaasi waxay ku eg yihiin markay 21 inoo bilowdaan October waxay ku dhamaanayaan bisha soo socota ee November 10keeda 2017 ololahaasi oo ay tahay in loogu dhaqmo sida xeerarku ay sheegayaan ololuhu xisbiyadu maalinba xisbi ayaa ololaha qaadaya waxa ugu horeynaya xisbiga u cid oo maalinta sabtida ah axadda waxa ololaha iskale iyagana xisbiga kulmiye isniinta waxa leh xisbiga isaguna la yiraahdo wadani saddexda xisbi saasay u kala qaadanayaan maalinta ku xigta haddana waxa bilaabanaysa ololihii xisbigii u cudee bilaabay ayaa haddana halkii ka sii bilaabanaya laakiin waxa muhiim ah inay dadku ogaadaan xisbiyaduna ay tahay iyaguna inay ogaadaan waxa weeye in ololahaasi ay bilaabanayaan maalinta sabtida subaxnimada 6 subaxnimo saacadu markay tahay ay bilaabanayaan waxayna ololaha banaanada lagu qabanaya ku eg yihiin 6 maqribnimo wixii inta ka dambeeya ilaa 12 habeenimo xisbigaasi ololihiisa waa sii wadan karaya wuxuu ku ekaanayaan laakiin ololahaasi ma aha kuwa dibad iyo fagaaraya lagu qabanayo waxa weeye olole lagu qabanayo ama xafiisyadooda ama hoteelo ama guryahooda oo ah meel aan fagaare ahayn fagaaruhu wuxuu ka bilaabanayaa 6 arooriyo ilaa 6 maqribnimo waxaanu dejinay jadwal ay ku kala soconayaan dhammaan xisbiyadu jadwalkaasi wuxuu u tilmaamayaa xisbi walbi maalinta uu leeyahay iyo ololaha sida uu qabsanayo jadwalkaasi waanu siinay dhammaan xisbiyada oo way haystaan ciidamada ammaanku way haystaan xukuumaddu way haysataa komishankuna isagaaba soo dejiyay oo sameeyay marka ololahaasi sida jadwalkaasi dhigayo ayay ku soconayaan si kaleeto ku socon maayaan Saciid Cali Muuse afayeenka komishanka doorashooyinka qaranka waxa uu geesta kale xusay ficilada ka reeban habsami socodka ololahaasi guddiga anshaxa ee komishanku waxay si aada oo dhow ula socon doonaan hawsha sida xisbiyadu ula qaateen inay u fuliyeen sidii loo faray iyo in kaleeto waxaanu uga digaynaa xisbiyada inaan xisbina uusan qaadan maalin uusan lahayn oo ay ka fogaadaan maalinta xisbigaasi leeyahay in ayan iyaguna wax ololo u eg ama ayan sameyn waxaanu kale uga digaynaa maalinta xisbi uu leeyahay ololahaasi in aan xisbiyada kaleeto wax provocation ama carin ah ama wax u dhimaya ololahooda ayan ku sameynin taa u dheedo dhibaatooyin bay dhalin kartaa ammaankeena wax u dhimi kartaa waxaanu jecelahay in xisbi walba uu ixtiraamo xisbiga kale maalinta uu leeyahay ololaha doorashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Cabdilqaadir Iimaan oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa uu fariin adag u diray guud ahaanba bulshada gaar ahaan taageerayaasha saddexda xisbi qaran isagoo oo ku adkeeyay inay dhaqan geliyaan xeerka anshaxa doorashada oo saldhig u abuuri habsami socodka ololaha doorashada iyo qabsoomida doorasho dalka uga hirgasha si nabadgelyo ah bulshada Soomaaliland oo ah bulshada nabad jecel waxaanu ka codsanaynaa inay iska jiraan wixii عاطفة كيني كرا أما يكوشرتو هي درين قبيل وان وإن سمي دايسان على أرنت نوغلا قيب كشان نمتقلية دي قرن ماذا تدني ماذا دينتا يشروع دا إلى لنتيدا لنا لقبري ما يو قولوا هنا وإنو نقضى ميد بلا حنف وآن عاطفة سين وحنفرينا ومدى Somaliland meel kasoo joogaanba in gamcaa la isqabsado in maanta laga baxo kana hebel iyo kana hebela waa in loo soo jeestaa si wadanka loo dhisi lahaa doorashadaasuna ay inoo noqon lahayd mid xora
mid xalaala oo aynu kaga baxno caqabadaha inuu hortaagan hadda waxaanu kaloo soo saarnay xeerka saxaafadda xeerkaasoo ahaa mid isagana aanu kala seexanay saxaafadda privateka ah iyo ta dawliga aba commissionka ay wada seexeedeen saxaafaddu sidaa daraaddeed waa inay doorkeeda qaadataa oo si wadaniyad leh oo dadka iyo dalka iyo diinta la jeclo kaga jirto u hirgelisaa uguna dhaqataa qodobada xeerka anshaxa ee aanu kala seexanay saxaafadda dowladda waa loo siman yahay annagoo taa hirgelinayna waxaanu soo saarnay shaxda barnaamijyada iyo ololaha xisbiyada ee muddaysan oo aanu mid walba siinay waqti isleeg isku mid ah si cadaalad ahna ugu qaybinay wasaaradda warfaafintana si fiican baanu isula qaadanay hawshaas fulinteeda waanay soo baxday oo waa taa halkaa inoogu taalla maantana waxaanu u gudbinay 3 xisbi qaran iyo wasaaraddaba jadwalkii loogu qaybinayay sinaa 3 xisbi qaran hadday tahay TV-ga qaranka hadday tahay raadiyo Hargeysa iyo hadday tahay Dawan journaalka Dawan 3 siban ayaa loo qaybsan doonaa